gudoomiyaha hay'adda Qarnul Afriqiya Sheekh Maxamed Cali Geedi oo xafiiskiisa magaalada Hargeysa Bulsha TV ku siiyay waraysi gaar ah ayaa iska difaacay eedeymo dhawaan loo soo jeediyay kuwaas oo sheegaya in qoysas degan bariga magaalada Hargeysa ku haysto dhul. Gudoomiyaha hay'adda Geeska Afrika Sheekh Maxamed Cali Geedi waxa uu faahfaahin ka bixiyay ugu horeynba dhulkaasi iyo waliba sida ay ku yeelatay hay'adda Qarnul Afriqiya. waa kan Sheekh Maxamed Cali Geedi oo arrimahaas ka hadlaya. soo fadhiisatay iga cabatay waxaan kaga warramayaa marka ugu horeysa dhulkii sheegayaan maaha dhul beera maaha waa dhulkii crash programka ee dawladdu lahayd wasaaradda deegaanku ay lahayd mashruuca crash programku uu ahaan jiray dhulka hay'adda ayaa la siiyey inay ka samayso magaalo tacliimeed digriitadii madaxweynuhu waa taas digriitadii madaxweynuhu lagu bixiyay dhulka waa kaasi hay'adda lagu siiyey dadkaasi waqti dambe ay soo degeen dhulkaas soo degeen markii la soo noqday ka bacdi bay soo degeen markiina la siiyay annaguna waxaanu samaynay dadkii meesha deganaa reer walba heshiis baanu la galnay qoraala in dhulkaasi yahay dhulkii crash programka inay nagu wareejiyaan annaguna waxaanu siinay reer walba 2008 markay ahayd 2008 ahayd reer walba $8,000 baanu siinaan farta ka saarnay inay ku guuraan $8,000 waqtiga waxay ahayd $100,000 bay maanta u dhigantay reer walba wuxuu ka iibsaday beer iyo geel iyo ari buu ka iibsaday dhammaanba waraaqahoodii ay ku saxeexeen halkaasay ku wada jiraan wasaas gidigood nin waliba reer waliba oo lacagta ku qaatay waliba waxa jirtay reeraha qaar waxaanu siin jirnay mushahaaro ilaalin ay dhulka ilaaliyaan baan ku siin jirnay laba ka mid ah berigaas say u ilaalinayaan dhulka ay dabadna ay farafareeyeen maxkamadda la geeyey maxkamadda gobolka ayaa xukuntay 6 bilood xariga lagu xukumay inay ka guuraan marka dhulku waxa weeye dhulka mashruuca la siiyey magaalada tacliimeed la siiyey in laga sameeyo 4 mashruuc doonay laga sameeyo xarun aqooneed iskuul farsamo oo waxyaabaha ugu waaweyn u baahan iskuul weyn oo farsamada ah iskuul secondary oo caalami ah oo dadka dibadda loogu talagalay iyo jaamacad caalami ah afartaas mashruucii ugu horeeyay baa imika bilaabmay oo socda oo mashruucii xarunta aqoonta waxa ku xigi doona insha Allah kii farsamada ayaa ku xigi doona insha Allah marka dadkan sheeganaya dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadku inay Ilaahay ka cabsoodaan weeye oo iska ilaaliyaan xaraanta iska ilaaliyaan dadkan sheeganayaan dhulka may lahayn oo dhulku waxa dhulkii crash programka hay'adda dawladdu ku wareejisay reer waliba lacag buu qaatay saxayadii baa laga hayaa dhulka xayraad baa waliba la saaray inaan cid kale taaban karin waxa soo dhan baa jirta haddana intii halka ay soo taageen ay yiraahdeen wadaadkaasana boobay oo dhulkayga naga qaaday oo beer ah wax beeray ku leeyihiin meeshana ma jirto waraaqihii oo dhamina waa kuwaas ilaahay waxaan ka baryay inaan anaguna wax dulmin anagana la dulmin iyagana waxaan ugu naseexaynayaa ilaahay ka cabsooda xaraanta iska ilaaliya xaraanta afkiina ka ilaaliya caruurtiina ka ilaaliya cadaabtana iska ilaaliya waxaan idin lahayn hadoonna waxaan warbaahinta waxa fiican had iyo jeer marka ay wax idin keento in la iska hubsado إلهي بيقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة إن لا يسك إلى أنا صاحي يروح أنا ويديسه لكن ما يصاحي أنا ويسك بايس ضد بدن بيجارسيسي نمن كانوا يسكوا هنا يقولوا رانا الظلم وذات كسان الظلم لكن حقيقة ما أنتوا حنشيء نحويه أنا قومين ظالمين تيجا ظالمين يجا ظالمين إلهي waxaan ka baryaynaa Ilaahay subhanahu oo waqti la bilaabay lahaa waxa dhacday azmadii dhaqaale khaliijka bilaa ayaa dhacday dabadna mashruuc dib baa loo dhigay dhawaan baa mashruuc dabadna dib loo bilaabay bariga dadka waanu naxariisano waxaanu ku leeyahay inta la bilaabay iska sii deganaada mushaahara baan ku siin jirnay mushaaharo ayaanu ku siin jirnay qaar inay ilaaliyaan oo deganaadaan qaar baa qaata dadka qaar baan heshiiskii aanu la galnay aan ilaa imka ka bixin قارن ويكبحنا وكوالكن ديسو تاجله دولكنا waa beeraha waa Luqmaan Maxamed Faarax Bulsha TV magaalada Hargeysa